dalada haweenka nagada ayaa magaalada Hargeysa waxay ku qabatay kulan lagaga hadlayo sidii loo hirgelin lahaa qoondada haweenka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u gudbiyay golayaasha sharci dejinta waxaana ka warrameen muhiimadda iyo ahmiyadda ay qoondadan u leedahay haweenka doonaya inay ka qayb qaataan siyaasadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan u sharaxan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ugu horeynkaasi waxaa ka hadashay Marwe Nafisa Yuusuf Maxamed agaasimaha dalada haweenka nagad waxaana ka warrantay kulankan iyo ujeedadiisa waxayna maanta halkan isugu nimi shirkan oo si wadajir uga dhici doona gobolada bariga iyo Hargeysa in aynu kaga wada hadalno arrimaha haweenka ee siyaasadda iyo sidii loo dardargelin lahaa inay dumarku kooto ama qoondo ay ka helaan marka uu shirkan maanta inoo dhamaado waxaynu soo saari doonaa baaq aynu u dirayno golayaasha qaranka si ay u hirgelin lahaayeen kootadaas haweenka kulay waxaan filayaa cidda codaysa waa dumar waxaynu doonaynaa maanta codkeena iyo farteena inaynu hablaha musharaxiinta ah ee intaas oo jeer hungoobay inaynu maanta farteena ugu hiilino baaqan waxaan rajaynayaa maanta inuu midho dhal badan yeelan doono wax fiican ka soo bixi doonaan fahmi doonaan dumarku inay cid ay u baahan yihiin ay tahay dumarka iyo codkeena iyo farteena bulshadana inaga ugu badan maxsuulka maanta soo baxa waa ka berri aynu ku naaloon doono hablaheenuna ay waxayna ugu qaban doonaan dhankoodana waxa halkaasi hadalka iska daba maray isla markaasina su'aalo kala duwan oo ku saabsan qoondada haweenka ku weydiiyay mas'uuliyiinta dalada haweenka nagad haweenka leh hanka murashaxnimo ee u taagan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka gabagabadiina halkaasi waxaa laga akhriyay war-saxaafadeed ku saabsan qoondada haweenka iyo sidoo kale ka qaybgalka siyaasadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan shirkeenna waxaynu maanta ku falanqaynay oo aynu kaga doodnay sidii loo meel marin lahaa qoondada kuraasta golayaasha baarlamaanka iyo dawladaha hoose ee haweenku ay xukuumadda iyo golaheeda wasiiradu hore ugu gudbiyeen golayaasha sharci dejinta golaha wakiilada iyo guurtida waxaan kulankan iyo kulamo ka horeeyaba ku iftiiminay in ay dumarku yihiin dadka ugu nugul uguna badan dadweynaha reer Soomaaliland iyagoo ah 60% oo ay iyagu yihiin kuwa codeeya sidaa daraadeed ma jiraan cid matasha haweenka oo ka turjumta baahiyahooda ballaadhan maadaama ay yihiin bulshada inta ugu nugul haddaba maanta maadaama xukuumadda iyo golaheeda wasiiradu ansixiyeen oo ay gudbiyeen qoondada haweenka oo ah 22% una gudbiyeen golayaasha sharci dejinta si ay uga gutaan waajibaadkooda ah in la ansixiyo waxaanu ka codsanaynaa labada aqal baarlamaan in qoondada haweenka la ansixiyo sidoo kale saddexda xisbi qaran waxaanu ka codsanaynaa in ay fuliyaan ballanqaadkii 30% qoondada haweenka ee ay hore ula galeen haweenweynaha reer Soomaaliland ugu dambeyntii waxaanu idinka rajaynaynaa inaadna karaamayn doontaan oo aad dumarka sharfi doontaan idinka oo eegaya kaalinta ay kaga jiraan bulshada